maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal مسؤوليتي وحلقان سكالي لما مولو برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو خبر كان مهران أيوه مضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي وحلقان سكالي لما مولو برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو خبر كان مهران أيوه مضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkii maaraynta dadguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu haddana meel kale la mara ayaa musuq maasuq galay kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilhaantiin baa meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal مسؤوليتي وحلقان سكالي لما مولو waa mar kale dhegeystayaal iyo barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo oo aad isbuuciba 2 jeer ka dhageystaan idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa gacan ka geysanaya hay'adda markhaati idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaana baahisa 12 ay taariikhdu maanta ku beegan tahay Abriil sanada 2015 barnaamijku waxaa marti ugu ah oo igala qayb gali doona qaybaha martida gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Galgaduud Cadceed Sheekh Doon Adiiriye oo isagu ah qof in badan ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya ilaa iyo dawladii ka caankaydna wax badan soo qabtay oo qof shaqeynayay isla markaana sharaxi doona qaybaha musuqmaasuq uu leeyahay balse alaaba barnaamijka qaybta hore dhageystayaal waxaynu ku bilownaa sheeko gaaban oo ka hadlaysa dhibaatada musuqmaasuq uu leeyahay ayadoo qaybaha dambena qadadka telefoonada dhageystayaasha barnaamijka ay kaga qayb qaadanayaan oo qadadka ay ka soo qayb galayaan balse waxaan iminka soo qabanayaa sheeko gaaban oo musuqmaasuq hadlaysa gaar ahaan qaybta musuqmaasuqa beeraha musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii مسؤوليتي وحلقان سكالي لما مولو برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو خبر كان مهران أيوه مضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق
xaaji roob la duqahay markaan waxa waaye gacana lagu hayaa maxay bulshadii haddii aan raashin dhaca keeno way iga hor yimideen haddii aan shaqo abuur samaysto bulshadii adeerayaashaan dhallinyaradan u ahay aan keensado waa iga hor yimideen markaan waxaa waaye hay-ado amba kuwa deeq bixiyayaal oon isfahamnay ayaa jiro ogolna inay qalabka tacbashada beeraha hadday makiinado ahaa lahaayeen haddii raashinka wax lagu beeraayo ahaa lahaayeen haddii mirihii abuurka ahaa lahaayeen ayagoo daaweysan oon xataa bahal oonan cuni karin ay ogol yihiin marka waa inaan ka ganacsadaa marka maxaa yeele ma la fahmi karo arrin la fahmi kara maana qarshmiga galaayo lacagna waa ka helaa marka arrintaas waxaa waaye inaan ku dhaqaaqaa alaabtaasna hadda waxaa waa isbuucaana iyo imaane markay ii timaadana horaa laga gelinaa ninkii dalaalka ahayoo asxaabta ahayna waa jiraa ninkaasa hawshan u dhiibaa isagaa farta ka saara isagaa kala gadaayo isigaa kala gadaayo nin la yidhaha doonta ii joogo waa iska soo doonanaa keliya haddaa magaalada wax keeno horow ka imaana baasha haddii su-aal ka timaadana beeralayda marka horeaba afti ka qaadaba sayna igugu soo laaban marka horeaba aftidooda haystay oo warqadihii ayaga aan ka saxiixay ayaa alaabtan kusoo helay marka doonta u tagaa doonta markaa u tagana gartaan inuu galo nin geli yaqaanana waayo haddii hawshi loo dhiibo waaba kala gooyaaba isaga maba ku dacdaba magaaladanna waxaa waaye hala kala shaqaysta waaye qofka dhimanaya isigay u taallaa qofka noolahayna isigay u taallaa marka ninkii doontahay waa inaan u tagaaba وردونت رابل هيا بالورد سيته يعني وان لدنها الحمد لله هيا واجب بريال يوركيله وقتها وقت بدنا wada shaqeynay maalin dhaweed qolada hay'adii aan la socdo beeraha iyo maraan ku soo marna socod kormeeradii iyo wixii waxa iga soo baxay dad fara badan aan warqada ka soo saxiix haye qalab beeraan wada qalab beereedaad wada haday makiinad noqol hadii hadoo abuurki noqolaa intaba waa la wada abuurki beeraha soo daawaysan iyo makiinadihii iyo wixii dhamaay iyo motooradii xataa hadii faraha la soo leexshay xataa biyaha waraabinay motooradii xataa waa wada wax ka maqan ma lahan warka keen dadkana waxa waaye marka horeaba laga qalinka laga qoray waxa la yiri qayra la idin soo wada warqadan buuxsh waa garto qowda maqashay waxna ha u qabanaa liira marka arintaas in ay iga faa'iideeyaan rabaa waa tahay horta arintaasi waxbaan ka qabanayaa waana wax magaalada u joogo waana sida ugu dhaqsaha badan hawshaas wax ka qabanaya alaabtaas waa in la socodsiiyaa horta qoladii aan la shaqeey jirno wixii aan dhacay iyo naga iibsan jiray soo ma joogaan maba tagay kaas hadda marka u tago uu arko maxaa haysaa uu ka bilaabay wada maxaa haysaa waxa waa isiga umada ilaahay inuu wax lagu dhibaateeyo kaliya ka ganacsadaaba lacagta wuxuu meel u dhigtay maxaa haysaa uu kuleeyay marka timaad uu ku fahmay macna marka soo socoto dadka waa kala aqaanaa uu yiri markuu soo socdo qofka shaxaadka iigu socda iyo qofka macnaha markuu soo socdo wax ii wada xataa waa kala aqaanaa uu nin suuqa madow ku noolaan jira waa ninkaas hadda hawshan adaan ku dhiiba alaabtan isbuucana iimaanay intayna imaanin inaad diyaariso qaabkii lagu bixinayo laga rabaa hawshan adaan ku dhiibay garabkaada la galo waa dhamaatay wallahi waa yimid oo kasiyoon jaanisa yimid saddex qaybood qaybaan siya maxaa ka rabtaa asagana cirka wala gadine meeqa sano waa isdaba taagana waa keena waa qaada waa odiga waa ina u taga laa ilaaha illa allah waa isoo doonataan kuuri aj waraayade وريك الرقامية هاي ورا وافعنا وريا دونته ساتها الحمد لله على دكور بقول دونتها تويمات مو وحبو دونا وحبو سيدا دون وحبو سيدا ودونته وصاهري نيو سيدا محل لي واي markii doonta leeyahay ma waa hadda waana dooratay waana sidaa waa doontay anna waa ka sii dhiga waa iga qaata haye waxaan ka rabaa horta marba dhinacay baasho ka timaada haye markaan waxay ka timid dhinacii beeraha ها ايه nin saaxiibkayga ba macnaa qolahay aad intuu tagay horta beeraleydii intuu tagay war magaalo warqadu ku qoran yahay leeyahay moogta inta u tagay horta ka saxiix waxay u baahan yihiin inta ay yihiin inta qof ay yihiin taleefanadooda wuxuu inta ka qortay oo hay'ad ula tagay hay'ad inta ula tagay oo dadkii waa la hadashay inta soo wada keenay oo tusabeerihi iyo wixii sidii u dayacan yihiin إيش مركي كقادين واحد لهنا هذا مطور أباهنته هذا ملدو سيدي بيرها فلا يأباهنته هذا أبور كيو داويسن أباهنته أنت هلا نقولنا داد ولا لا وأسر بي ما هي سهل أنا يا وحر وهذا ها وحنا هي إسكندرية ورت منك عرفت عكين ورجع نملاص قبا
نيهو نينكي روب لحامية ها واسقي دغيسو ليه هرت waxaan ku sheegay horta kuwaan inaa horta waa iska sabaa moogta aniga ya maxaa iga galay nin geel baan magaajad ka cabsanays la ilaa inta ninkaas anigu isaga ma rabe wax uu jiran rabaa horta ninkaas dheero xoog badan oo madow intuu joogo niyo anigu adiga ma qadimayna aniguna inta aan joogo magaalada aan lacag hayo adna qadimaysid waa midda oga waxaan ku sheegaya haddaba makiinadaha ما وركي مغل ماكينادو قلبكي waraabka matooradisi wixii oo dhan waxaan ku sheegay hadda waxaan ku sheegay okay hadda waxaan ku sheegay 30 ana leh hadda ku sheegay wixii bilaaban ma ku tusima hadda ninka kale un geeya waryaa horta fiiri wax haba ilay man baariga horta waxii ogolaw أنا وحيي أقرأ أنا هوش يسوق دقنا واحد هدي بقولك صدق إنه مقل هي فيري مقل بقولك صدق هرت أنا أسكله أنا شيء ميس دقيس أنا على إيميل هرت أنا إسكله هو إنبتاع ما هرت عن كهرباء أنا جالس هرت عد وحلهون أنا جاحين وإنبتاع هي بقولك صدق أنا إسي واحد هوش يوشك نيهو أفكره كل يوركا عن كهرباء لك وما الله يهني ما يهرت مقل هرت الدلال أذوق وادنا عام سجاس سجون وادنا عيس وكو فهمي ما قرأت أصلا ما كقاري ما حدا لا وضع النعبة هكذا قضية وهي أنا واحد يقعد سجن ما قد كقاريسة هرتو حكار ما مي فهمنتي وكو فهمي وحربت دلالك جوا مشيسة كيس وهل كيسة كيس العكتة واحد سجل أدو جديس لو جديس أو حربت بقول كيس الدنيا قطعني كتوضعت أسيس الفهم سجن صارين السجن صارية أدبض ما ويح كويس إنسان بقول كيس لا عجوا ديار ألعبي وديار ألعبي ما ديار لا يقول أجاوك وي هي رابله ها العجوا ديار wuxuu farasaar miya maso waxa way biri iyo saadam iyo soo laabay yani ma rabo maqal dadkii ay ku kacay hadhow biri dadkii aan saxiixooda soo qaaday waxa la dhigtada dhalinay kala facda laakiin maqalay ku dheer dadku waxa maqlaayaan wax wax sheega way ma waa oga wax ku siyaalo way leeyahay wax sheeg dadkii wax waa maqlaayaan intaynan maqlin ka hor raba inay wax iga qaad waxaan ka rabaa horta ninkaas lacagtiisa waa aragtaa xataa lacag ma ahan waa jeeg no jeeg mu naga dhaaf cash ma ku soo dhigo ما جيج ما حد على وين أنت ودوا بلوجي ذا ورقة جابك أسكت شيء والله أركايا ولي قاعد قال العق كو دونتي ساق جرا جوجت مقالد جابك هذا تكو قالتي هالورقة دي قلت حاسس أنا وتابل هذا العقد موتين ماكينة هو حواي أسبوع يعني قلبك أنت قاعد وأنا جراش سياي كود جسا ماشي سام كل ورقنا حتى كلا طول خوش أصحابه وما حسنت ماما وحي مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري لكي ما نفسي قابرتو كم شبا ما تتيرا من دينا صاع فايستيو مسوق الدبر بينيو شعيقة مير مارينيو مريك يا دابين كديغن اسموغان هاو بدعن اسموغان هاو بدعن ماما وحي مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري مع العين مو قدوري مسوق magaalada qalabkii waxa soo galay ee beeraha si fiican ninkii xaaji roob la ahayne wuxuu naga saxiixday warqado qalabka ka sugayna maxay tahay magaalada ay yaalaan annagana wili aan noola keenin qalabkan horta waa qalabkii annaga nalaga saxiixay oo la rabay in la siiyo madaxeena lagu keenay iyo annaga darteena loo keenay wuxuu ku soo qaato waa annaga darteen oo wax ku qabsano marka hadeeba hadda suuqa soo galeen waxa waaye gacan hoosaadin badan qabana waa see wax uga qaban karnaa marka ninkaas inaa iska dhicno waaye waa saas waa deewaanadu ma deeqdo waan waanina marka halka ka soo celsid balkaan ka laabanaya marka waa inaan iska waxaan balaayada waxa u furaab ka yaabna meel kasta waxa uga soo furan markii albaabka aniga hal talaan qabaa
yaan loo fariisanin aan u soconno meeshay wax geeyaanba aan ka daba tagno ka daba hadalnoon u sheegno runtan yaan laga quusanin waa daba soconeynaa le sababtoo ah annagu muwaadiniinaan nahay shacabaan nahay wadankan u dhalanay dastuurka dalku waa caddaynaa xuquuqdaan leenahay in lagu tunto ma aqbaleyno asaga ciddii wax soo siisa annaga madaxeenay ku soo siisa asaga keligiisa isku socdo wax lama soo siin soo ma ciddii wax soo siisa inaan raadino waayo oo aan ku wargelina in ninkan annaga oona dhacay xaj ma arkaysaa waxaas daba yaalla si wanaagsan ya ina tareeyada waxa saaran oo dhan waa matooradii waxa candamaydlaa waxa candamaydlaa daba yaallo aragtay waa matooradii waa matooradaadi goormaad yeelatay korneeda wasla annagii maxaa u yeelaya waxa u jeed horta waa matooradii makiinadihiina waa kuwa soo daba socda ninkaad ugu maqlayso aniga maaha xaggeen kugu xaraya xaggee waxaad igu xaraysaa 6 garaash oo kala jeeday weliba ha iskula xarayn laba waxaad geysaa gurigeygii xaafadii hulka ahayd waa taqaanaa 3 jidcadda kadib labana waxaad geysaa geerashkii asaga ahaa 3 baqaar ku deji wixii xisaab ah ma jeeg mise iyadoo hadda ku jirta horta roobla waaka maarata isma qariyo nin qarsoomaba maahane rooble jeegiisa ku wareeji rooble roobkiisii da'i lacagtiisii rooble keen jeeg haye rooble lacagtii ma haysaa lacagtu waa haya laakiin waa qabiya lacagtan waxbaa iga dhimanay maya wax kaa dhiman ma laha akoonkaaga hal eberaa ka dhiman hal eberaa ka dhiman ayadan waa ku daraynaa keen wax meeshii laga ka badan ka muhiimsan wata waligeena ma lacag isaga hor nimid alaabnina isaga hor imaan haddii waa baxay qoladayaa soo socota ani waa baxaya rooble ha bixin u kaadi ma arkaysaa haddaan u fadhiisan lahayn ka warrama marka ilaahana kor keene war nimanka haye ma fiican tihiin waa fiicannahay ceeb badanaa waa la yimid qoladii waalnedaa timid mudaharaadkii balaayada dhibka wada jirta horta maanta saa inaad tihiin anagu idinma malaynayn waxaa waaye dad waxaa tihiin ceeboobay nimankaana hulka ugu jiro waxa ninkan waa isdaba haystaan ma dhow raggaan waa rag haysto waayo taxan niman yahow annaga idinkama aqbalayno in magaceenna aad wax ku soo qaadaan haddana suuqa lagu iibsado waa aragnaa hadda wax naga qarsoon ma ahan sheekadan ma meeshaanaad ku daminaysaan mase ilaa iyo heer maxkamadeedaan geynaynaa waa heer maxkamadeed sheekadu tuugma maaha mintiga soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiya dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin rooble tawaa kacabsahay indhayga hoosay jiraan beriga maxkamad hataa maqla walaala waa geleena saa looga badbaadi karaa waxa looga badbaadi karaa u qaybi wixii aan helo dhan ayaga sii lacagta maan siiyayna lacagta sii iska baxaynaa wixooda haddaan siino waxaa u soconaa danta shacabka danta guud aan soconaa dan gaar aan leenahay mala lacag anoo qaybinaysidna mal waa in alaabta dadka aa kusoo qaatay aa u geysaa ood iga gudubnaa inaad noo celiso hantida la soo celisho waay aniga saasa iila muuqataa baasha waa leesaayaa rooble ood iga gudubnaa u tag hantida ka soo celi dadkan waxooda si na badbaadinayo xarig ma rabneen haye waa lacagta keene iga qabo waa leesxilaa wallah kaabo reernimada kugu aqaanay maanta jaagna waa aad wadaa waxaan ku yiri waa jeegaagii dhegayso waxaad alaabtaad rabtaa inaad beec usoo heshay
maya lacag badan noo kor saartay miya maya raganimada kugu ogaa maya raganimadii waa la iskaga daba yimid ya raganimadii waa la iskaga daba yimid waxaa dadoo meesha taagan muu jeedaa dadku ma alaab inay horta dadka ma aragtaa islaantaasay u jeedaan dhererka badan lacagay leedahay maqal lacag dhagayso dadkaas aa u jeedo waa dadkii xoolahan lahaa xoolaha ay leeyihiin maxay waa dadkii hay-adday usoo dhiibtay war anigu hay-ad ma ihi moogta war waa dadkii fiiri waxaa kuu sheegay xarig haddaa ma anad ii keentay maqal haddaa xarig rabto niyo xarig haddaa maqasho haddaa xarig rabto xoolahan waa la iskaga daba haystaa maxkamada isla tegayna ay taagan waa xoolaheeni wax la kala gadanayo waa la isqabtay odaygiina wuu iska soo dhiibay rooblaha lacagtii waa tan jeegi waa kan wuu iska soo celiyey warnagada doqonnimada rooble laftiisa aaw waa kan rooble yaa raganiman ku rooble waa isdhiibnay aan iska dhiibno adigana xoolahan soo celi jeegaada qaado acuudu billahi min ashaytaan rajim hadda waxbaa maqan alaabtii bar baa maqan xalaytaan dhowr kurmoor gaday taagnaa ma karna nimayaho shaakiraan ma soo gabagabay dad waaweynoo badan baa fashilmaaya adeer islaam acuudu billah anigu waxaan dhihi lahaa islaamahan iyo ciyaalkan meesha socdaan cagta marin waa raganimo haddaad sadiidaan hadda waxaan sameeya ma kuwa cagta la marin kara maaha anaga waxaad yeeshaa haddiiba cid wax dabagelaysa la arko wax qabanaysa annagu maxaan ku diidaynaaba waxba ku diidi mayno haddiiba la arko alaabtan aan iska dhiibno alaabta way aniga diyaar bay iga tahay kowdhe weji aan ku hortaga dadka anigu ma lihi nin odayoo ganacsataana waan ahay haddee tuug weyno waryaana kor u sheegin feerin haddii wax la saxaa maanta waxaa waaye meeshii ugu dambaysaa la taagan yahay xaaji aan wada tagno dadkeenna waay fiiri lama kala haro horta dadkaan la hadlayna waa dadkeenni hay diran ha dhihin dadkii waa kuwan waa nala jooga hay waa kula socdaa saacadda haye sharciga maan aadaamis maya raalli ahaada matooradiina aad isiinaynaa makiinadihiina aad isiinaynaa si fiican abuurkii baad isiinaynaa beerihiina ku maalgashta waana idin garab taaganahay maanta wixii ka dambeeyey u noqon mayno nacafiya ilaahay aad ku soo celiyo diidnay idina balkudi hataa daaku shaqaysa dulka idina balkudi hataa daaku shaqaysa dulka idina balkudi hataa daaku shaqaysa dulka idina balkudi hataa daaku shaqaysa wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna waa hagaa qaybtii hore ee sheekada dhegaystayaal ayaad dhegaysateen barnaamijku waa barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuqa uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo isagoo dhanba waxaa barnaamijka gacan ka geysanaya hay-adda markhaati idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaana toddobaadkii 2 jeer baahisa dhegaystayaal goor dhow qaadadka teleefanada ayay dhegaystayaashu kaga hadli karaan dhibaatada musuq maasuqa uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo haddii ay jiraan fikrado ay qabaan bulshadu ay kaga hadlayaan musuq maasuqa oo aanu doonayno inaynu yarayno sidaa daraaddeed marka hore dhanka martida barnaamijka ayaan jeclahay inaan ku bilaabo waxaan iminka fursad siinayaa guddoomiyaha arrimaha bulshada gobol galgaduud wuxuu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi waa cadceed abtidoon diiriye marka hore isaga ayaa magaciisa noogu bilaabaya kadibna waxaynu weydiin doonaa su-aalo waa cadceed sheekh doon diiriye darajadaydu waa bulshada rayidka gobolka galgaduud degmada dhuusamareeb civil society cadceed kusoo dhowow barnaamijkan gaarka ee aynu kaga hadlayno musuq maasuqa iyo qaabka lagu cadaalad fali kara bulshada horta ereygan afka qalaad lagu yiraa corruption afkana soomaaligana lagu yiraa cadaalad darro iyo musuq maasuq waa erey dhifitaankiisu marka hore aanu afka u roonayn haddii qoyska ilaa qaranka uu gaarana ay tahay gubato fakatay
waxaan isleeyahay cadaaladaas waxaa lagu heli karaa in loo helo dad cadliga u ehel ah oo la geeyo gobolada dalka degmooyinka iyo meelaha bulshada laga maamulo sida dhaqaalaha iyo maamulada gudba marka yaa looga baahan yahay in musuqmaasuqa ay la dagaalamaan oo cadaaladda ay falaan waxaa looga baahan yahay bulshada waaxaheeda markii qoys iyo qaran bulshada waa isku tixan tahay qoysku waa aabe wiil curada gabar curada iskool aada shaqo aada haddii ay qoyska ka soo bilaabato xaafadda tagto laanta tagto degmada tagto gobolka tagto qaranka kor hoos ilaa kor saas loogu fikiro dadka u ehelkaana loo carbiyo waxaan isleeyahay qofku hadduu helo cilmi ahaan iyo aakhiro ahaan iyo adduun ahaanba wax ku filan inuu cadli fali karo wixii ka sokeeyo cadaalad lagu heli karaa waa aada ugu dhib badanta bulshada gobolada ku sugan oo kale marka laga hadlayo cadaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa sidee ugu wacyigelisaan aad iyo aadan uga wacyigelinaa musuqmaasuqa maba ku badna gobolada markii wax dhaqaalaana hadda layskuma haysto laakiin haddii aad u fiiriso bulshada sideedaba waa ka qaawan tahay dhinacii cadaaladda waxaad arkaysaa laba qof oo ishaysa oo ama maal adduunyo isku haysa ama isku haysa laxajeclo ka dhexaysa oo inay laba oday raadsadaan maahan albaab ay cadligii u garaacaan oo ku kala saaraa aanay jirin laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxaan ku wacyigelinaa ilaa iyo xad inay isu cadli faso bulshadu oo jumladii walba isku tixanuba oo lidadu ay cadaaladeeda ka tashato kadibna ay gaarto bulshadeynta waa tahay marka musuqmaasuqa bulshada dhexdeeda ka jira sidee loola diriiri karaa isaga qudhiisa cadeed waxaa loola diriiri karaa hadda ka hor dowladii militarigahayd aniga waa shaqaynayey wakaalada liiraa wakaalad ganacsiga ummadda inji aan ka shaqaynayey oo raashimada meeshaas waxaa la soo saaray wareegto cad oo heer madaxtooye ah oo isku tixan ilaa ciidan ilaa gobol ilaa degmo ilaa iyo hoos loogu soo dego ee bulshada waxaa la yidhi 50,000 oo qaran ku leeyahay 50 Soomaali waa $50 50,000 oo qaran ku leeyahay qofkay ku fakataa waa dil bini aadamna waxay ka baqaan wax aanay lahayn markay cunaan haddaan lagu dilin waa ku sii fakanayaan aad iyo aad cadliga waxaa looga heli karaa in maxkamadda cadaalada la saaro wax islaameed ama mushaar in la sii lahay ama dhaqaale bulsho ka dhexeeya qofku hadduu ugu tallaabsado musuqmaasuqaasna musuqmaasuqaana waxaa keenayaa waxa ugul ah baahida ugul ah laakiin waxaa loo cirib tiri karaa in qofkii ku kaca oo soo saaro maxkamad cadaalada dil ilaa iyo xabsidaari ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada Soomaaliyeed si ay uga fogaadaan musuqmaasuqa waxaan ugu baaqayaa bulshooy musuqmaasuq waa qof aad ku dhufatay halbowlaha eertariga ah haddii aad wax u hayso iyo haddii waxaad kala leedihiin ka baxa ilaahayna ka baqa aayadda lam yakun fiiriya kor uga baxa waa la soo dilooday waxaanu noqonay adduunka meesha ugu musuqmaasuq badnaad tobnaad ama saddexaad ha laga baxo soomaaliya waxau soo wadaa qawaacid aada u xun in personal attack laysu dilo in laysu dilo aragti ama laysu dilo waxaygiyaad qabtaa intaasu imaaleed bulshada ka kaaftoon iimaankaagana kaasho diintaadana kaasho waa mahadsan tahay gudoomiyaha arrimaha bulshada cadceed sheekdoon diiriyo oo barnaamijkii la qayb galay waa mahadsan tahay cadceed wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal qaybaha qaadka teleefanada iyo dhegeystayaasha ayaynu u gudbaynaa barnaamijkan gaarka ay ka hadlaya dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay qadadku way furan yihiin dhegeysta waxaad naga soo wici kartaa taleefanka 64433 oo aadan wax fura ah ka hormarinayn waa
afar afar saddex 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 amba 64 43 33 oo aan waxba laga hormarinayn sidiisa usoo garaac uu soo gelayaa kadibna fikirkaaga dooda musuq maasuqa ayaad ka qayb qaadanaysaa qaadkuna iminka way furan yihiin wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhace ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ex loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo qaadka teleefanada iyo dhegeystayaasha ayaan markaan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay fursad siiyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga مجاي عبد الرحمن أحمد محمد cabdiraxmaan soo dhowow barnaamijkii la socotay وعندها haye galabta waxaynu ka hadlaynaa cabdiraxmaan musuq maasuqa iyo sida looga hortegi karo ها haye waan ka xumahay cabdiraxmaan qadkii ayaa ka go'ay wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogowna maqal qadka xiga dhegeystaha ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso سعيد يحيى علي أحمد الجبل جوا barnaamijku waa la socotaan u malaynayaa كسان برنامج كان لسه نبدي عن كارلو برنامج كان في الناس قد يأتي إليه الصومال دوت دوا وكربنا الناس وكايا وحنا غير كرامركا بس الصومال ولا لغارك اليوم haye marka musuq maasuqa bulshadu sidee u diidi kartaa الصومال كانوا مساعدين وقالوا أو قالوا ما الجنيه الدولية دي تقريبا شو قالوا مركا قال كفرض عن الله إنه حار ما الدولة الصومال عن قاصنا إن ما حكذا bulshadu sidee u diidi karaan musuq maasuqa ها marka sidee loo diidi karaa oo looga hor imaan karaa على غير ذكر بالشيء برعاه وما جامعة ممكن الصومال وما جامعة كارتون لو ذكر ugu dambeyntii marka maxaad ugu baaqi lahayd bulshada Soomaaliyeed si musuq maasuqa looga hortago مسيطة مال مسلمين دعنا الله شعب الصومالية دعنا وبغلا برنامج كوين ما عنده محكمة هاي سفر فين السجين يدل وكل دعنا قتل الواقع إلا السجين بلاش ولا فيها رجلا waa maasan tahay سفر wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhace ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale weli waxaynu guda jirnaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sidii looga hortegi karo oo dhegeystayaashu qaadka teleefanada ay kaga qayb qaadanayaan 644 iyo dhegeystayaashu naga soo wici karaan amba 64 43 si ay barnaamijka nagala qayb galaan dhegeystayaasha dhanka fariimaha ayaan fursad siinayaa asalaamu calaykum magacaygu waa liibaan cali waxaan ku suganahay degmada hodan waxaan leeyahay musuq maasuqa waxaa looga hortegi karaa in la sameeyo barnaamijyo wacyigelina waxaan ku ammaanayaa idaacadda banaadir sida ay barnaamijkan noogu tabinayso aad ayaan kaga mahad celina maasanta ayaan leenahay dhegeystahaasi dhegeystahani waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum wax magaca sooma qorin dhegeystaha qadka halo asalaamu calaykum halo halo ha waan ku maqlaa walaal soo dhow هلو waan ku maqlaa magacaaga marka hore أبو عبد القادر cabdiqaadir barnaamijka mala socotay ها سفيان ayee bal soo gudub fikirkaaga أبو علي وحاول وأي سلام السلام بعد السماس وحال فرت الكرة
in maaragtay wadanka maamulkiisa iyo amnigiisa oo dowladda gacanta usoo galo hadda gacanta han musuqmaasuqa qaybo badan ayuu galay cabdiqaadir sidee looga kaashan karaa bulshada iyadoo laga hortagayo bulshada waxa weeye soomaaliyeed sida waxaad moodaa bulshada inay yihiin oo waxa u daran iyo waxa roonaysan aqoon haye dhibaatadana ayaga isugu wacan waxa weye qof mar hadduusan aqoon waxa roon iyo waxa u daran waxa ay bulshada soomaaliyeed yaqaaniin wax ka jira qabiil waxaa leeyahay musuqmaasuqi meel walba ayuu galay waxbarashadii ayuu galay xitaa waxa uu galay ayaa leeyahay minxooyinkii qaybinta dhan walbo marka sidee bulshadu meel ka fayow maba jirto sideedaba meel ka fayow maba jirto bal iskaba dhaafee usra ka fayow iyo maamul ka fayow iyo meel ka fayow musuqmaasuqa ma jirto waxaana u aabaa waxa weeye waa qabiilka iyo qabyaalada iyo xukunka jilicsan marka waxa weeye haddii maaragtay xukun laga soo saaro musuqmaasuqa iyo qabyaalada markaas unbaa laga kori karaa dalkuna uu dowladda gacanta kusoo galo dowladda soomaaliya sharcigii la dagaalanka caalamiga ee musuqmaasuqa heshiiskaas ma aysan saxiixin marka sidee loola dagaalami karaa igu celi heshiiska amba sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa dowladdu ma aysan saxiixin marka sidee looga hortagi karaa musuqmaasuqa hadday si saxiixin maba laga hortagi karaa waa in ay u saxiixdaa oo dalka iyo dadka u istaagtaa dadkaanu sidiisa xukun ay u baahan yihiin maaragtay dad wax la weydiin karaa soomaaliya maba ahanba sidiisa dad inay waalan yihiin moodo sideeda qabyaalada ay ku dhagabeeleen mid madaxa iyo mid maamula iyo mid shacab intaba waa wareegsan yihiin adiga lafteeda waa dareemi kartaa waa mahadsan tahay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan dhegeystayaasha dhanka fariimaha waxaan ka codsanaynaa in fariinta qoraalkeeda ay soo dhammaystiraan inta badan fariimaha haf ayay naga go-aan kuwa qaadka taleefanada toos soo gelayana inay taxadiraan oo marka qaadka ay soo galaan uusan taleefon ka go-in si markaasi aynu uga hadalno dhanka wicitaanka dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan 644 oo anigu tala galnay in qodobkan dooda ee musuq maasuqa looga hadlayo ay nagala qayb galaan dhegeystaha qaadka ku jira halow galab wanaagsan halow salaamu calaykum waan ku maqlaa walaal raadiyo iska fogay soo dhow barnaamijku waa la socotaa malaynaya waa la socdaa barnaamijka waxaana laga hadlaya musuqmaasuqa in badan dalkeena musuqmaasuq fara badan ayuu kusoo fogi jiray laakiin ahaantii waxaan dhihi lahaa musuqmaasuqa dalkeena waxaa looga saarayaa in sharciyo adag loo adeegsado haye marka waxaa dhihi lahaa dhankii dowladda waxa adkeeyaan sharciyada dhankii musuqmaasuqa iyo weliba maamulka ha adkeeyaan dhihi lahaa intaas bulshada Soomaaliyeed sidee ugu diidi kartaa musuq maasuqa ya bulshadu sidee u diidi kartaa bulshada musuqmaasuqa ayaduna in loo adeegsado sharciyada iyo weliba ayaa dhihi lahaa waa mahadsantahay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal marka qayba magacaaga igu celi marka hore naciima maxamed naciima marka bulshadu sidee u diidi kartaa musuq maasuq aad isleedahay dhegeysi u dambeeyay ayaa tahay waxay u gudoomi kartaa in dadka ay israacaan haye marka musuq maasuqa ugu badan ee dhaca waxaa la sheegaa meel walba inuu galay marka sidee dowladda Soomaaliya qudheeda loogu sheegi karaa inay musuq maasuq la dirirto waxaa ugu sheegi karaa in ay gelin ay sameeyaan haye iyo inay bulshada mar kastaba ay wacyigeliyaan sida barnaamijka noocan oo kale waa mahadsantahay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkii gaarka oo kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo inta ayaan ku idleynayaa galabta dhanka farsamada waa qadar xuseen axmed qadar yare waxaa barnaamijka mahad gaar u celinaya oo ila qayb galay martina igu ahaa gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Galgaduud cadceed Sheekdoon Diiriye oo barnaamijka igala qayb qaatay waxaana barnaamijka dhegeystayaal sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii qaadka teleefanada iyo kuwa fariimaha ay soo diraan leeyahay dhammaan waad ku mahadsantihiin sida fikirkiina aad uga dhiibateen ka hortagga musuqmaasuqa barnaamijka waxaa soo diyaariyay hay'adda marqaati idaacadda banaadir ee magaalada Muqdisho ayaana markaa baahinaysay waxaa idin tabinayay anigoo Abdicays Cabdullaahi Maxamed Riil waa baahdi isku duubanood leh inta barnaamij midkaan lamid ah inuu kulmayno nabadgelyo waqti wacan iyo xilli wanaagsan ayuu musuqmaasuq yahay